kulankan oo ah mid maanta lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji Macallimo horeyna uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka Gado ayaa maanta xaflad lagu soo dhaweynayay lagu qabtay degmada Balad Xaawo iyo waliba degmooyinka kale ee gobolka Gado ugu horeynba waxa kulankii maanta lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha gobolka Gado ee degmada Balad Xaawo lagu qabtay ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay kulankaasi oo isugu jirtay ururada bulshada qaybahooda kala duwan sida ururada haweenka dhalinyarada iyo waliba waxgaradka degmada Balad Xaawo anaga haddii aan nahay dhaqankii Soomaaliya gobolka Gado degmada Balad Xaawo waxaan nala siman wixii maamulkana aan jecelnahay nagu hogaamiyo inaan raacno inkastoo inaan tilmaam bixinno oo aan toosino waajib ay nagu tahay aan ka gaabsan doonin oo aan si gaar ah isu toosin doono waxaan soo dhaweynaynaa barasaabka gobolka waa mudan yahay asoo aan barasaab ahayn oo aan magacaawnayn baad ogtihiin wixii barnaamij iyo aan u dhignay soo dhaweyn hadda protocol yeeshay oo wixii qaloocan uu toosin karo wixii toosan uu hore u wadi karo inaan ka hor imaano ilaahay baa nagu makalifayo xalfadan aad ka quruxda badan oo maanta la isugu yeeray oo lagu soo dhaweynayo maamulka gobolka Gado lagu dhisay aad iyo aad baan soo dhaweynayay annagu haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed ee degmada Balad Xaawo iyo awalba annagu waa u taagnay maartay ragga dhismahooda waa garab taagnay laakiin annaga haddaan nahay haweenka حاول يرجعوا حد مدينة وحبنا نركب حين بالله هاي قبل عن كل لنا مذهب عن كل لنا هاي قبلها عبشان قبلنا أنا هدانا قبلها قبل قاصة قبلها دقمة Balad Xaawo أنا وصل وين إن أسوأ برساب هاي يعني وحنا أقطر تقنا 8 كيلومتر شهادة شرف بانكو قادن يوتيوب كي كشرته برساب وصل وين إن وأنا لا شقينا إن لكن أنا هدانا هاي قبلها Balad Xaawo أما قبلها قبل كجدو وحنا كتبنا إن معمول قبل كجدو وحنا أتصلنا إن معمول كإنه دبنوار شرقوني أنا رادي عبشان قبلنا أنا واشقينا إني وتاجنا معمول الله وتاجنا قبل كجدو وتاجنا هرمرك قبلها رجع الصوماليات بنشعل رجع الصوماليات أسباب قحنا إيكله يا هرمرك رسيا أنا هرمرك وتاجنا يا سحل كنا قلت ده وحنا أتصلنا on dawladda cod gaaban iyo cod dheer ku gaarsiinayna on barasaabka u sheegayna annagu cabashaan qabna in la hadlo oo heer gobol uu nala hadlo oo nala fadhiisto cabashadana la weydiiyo codsanayna annagu warigan cadaalad darro kama aan shaqeyn gabdhaha annagu isma dacweeyaan heer gobol iyo heer degmo waa leen heer gobol ahaan leen heerka gobolka gabdhaha annagu waa dhisan yihiin laakiin waxaa moodaa wiilasha gobolka degmooyinka yaana juqaynaya annaga ma yeelayna in la juqeeyo annaga dadka xor ayaa dhahdeen dawladda jirta dhahdeen waxaan codsanaynaa gobolku inuu nala fariiso waxa aan tabanayna in la warsado haddaan annagu cadaalad darro aan ka shaqaynayno oo annagu aan horumarka gobolka diidayno in la qabto diyaar baan laakiin annagu cadaalad ku shaqaynayno oo idin garab taagan oo horumarkiina maalin shaatigiina dhaqayno oo dhulka idin xaaqayno oo idin nadiifinayno oo hore in socdaay hanadyada oo hore in socdaay idin inaad annaga muxuu ahaay gadaalna loo soo fiiriyo ma yeelayna annaga waxaan codsanaynaa barasaabka waa soo dhaweynaynaa soo dhawow barasaabka iyo xibnihiisa maamulka degmada waa soo dhaweynaynaa laakiin anaga wax baan qabnaa tabashaan qabnaa haddaan nahay haweenka tabashaan qabnaa in nala hadlo 30 sano oo burburka dalka annaga soo dhisnay weligeena maana diriray adinku waa dirirayseen gacmaha dhiig ku wadateen adinka isleynay haddaan nahay gabdhaha gobolka cabashaan qabnaa waxaan rabnaa cabashadanadaas in wax laga qabto oo nala fariisto oo nala warsado barasaabka gobolka uu macnaha nala hadlo oo waxa aan tabanayno uu na weydiiyo annaga sheeganay waa ku soo dhaweynayna soo dhawow baan ku leenahay si farxad iyo wanaag leh kugu soo dhaweynaa haddaan nahay haweenka degmada Balad Xaawo ee barwaaqo walaale adoo barasaab xogeena ayaan waxaan kuugu imaanay degmooyinka Balad Xaawo tuulooyinka nawaaxigeeda ayaan kaaga hor imaanay haddood barasaab tahayna gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan kaaga fadhinaa maamulkii iyo degmooyinkii dhammaan waad soo dhistay waxa annaga aan leenahay ama qoondada naga maqana wali kama dhex muuqano waxaan doonaynaa inta dhiman ee ka dhiman gobolka
in aan ka helno oo ka dhex muuqan ayaan doonaynaa haddaan nahay haweenka degmada beled xaawo ee barwaaqo waxaa weeye annaga waxaa weeye intaas maamul kasta ee imaada ee degmada ama gobol waa garab taaganahay hil iyo hooba waa la garab taaganahay naftanadaa u hurnay meel kasta oo aan geli karna ayaan la gelaynaa laakiin waa inaan ka dhex muuqanaa waa inaan qoondada aan haweenka oy leeyihiin ee gobolka waa inaan helnaa adna waxaan ku leenahay soo dhawow barasaab mati madaxweynihii gobolka mustaqbalka ee jubbaland baa tahay soo dhawow baan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xalfadan aadkii aadka u maamuusan oon halkaan isugu nimid oo ku soo dhaweynayno ama aan ugu hambalyeynayno gudoomiyaha cusub ee barasaabka gobolka Macallimu waan u hambalyeynayna waana soo dhaweynaynaa anoo ku hadlayo magaca dhalinyarada insha Allah taala waxaana kula dardaarmaynaa gobolku wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin dadku waxay u baahan yihiin in isu soo dhaweeyo dadku waxay u baahan yihiin in hore loo wado cabdiqaadir xuseen ibraahim waa xogayaha arrimaha bulshada degmada beled xaawo waxa uu ka hadlay kulankii maanta lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Gado arrintan gobolka dhan ee maanta ka socota wax balaxa oo kaliya ku maahan degmooyinka gobolka dhan arrintaas ma arkay runtii ka qayb qaadan hayo soo dhaweynayaan ma arkay maamulka barasaabka ogtiin runtii taariikhdiisa iyo wax qabadkiisa meeshuu ka soo bilaabay uu mudan yahay inuu xilkaas maanta dawladda ay u magacaawdo iyo mid ka weyn inay dawladda u magacaawdo mudan yahay uu soo digaalamay taariikhdaas wanaagsan uu leeyahay ma arkay barasaabka marka wuxuu naga mudan yahay inaan soo dhaweyno si caleemo qoynan ku soo dhaweyno ma aragtay runtii aan u muujino niyad wanaagsan iyo la shaqeyn wanaagsan iyo aan u muujino sugoona barasaab bixeen ma aragtay waxa barasaab ku xigeenku intaan shaqaha uu soo dadaalayay haddana waxaan rajeynaynaa insha Allah intaas in ka badan inuu qaban doono insha Allah gobolka iyo deegaanka uu qaban doono iyo dalkaba ugu dambeyn waxa xafladii soo xiray gudoomiyaha degmada beled xaawo Axmed Barre Sheekh oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay ilgooniya ku hayso bulshada gobolka Gado gaar ahaan degmada beled xaawo oo baahiyo kala duwan qaba Macallimu waa barasaabkeena cusub ee gobolka Gado loo magacaabay waana garab taaganahay waxaan ku soo koobayaa Macallimu soo dhawow degmada beled xaawo way ku soo dhaweysay waana ku soo dhaweynaynaa insha Allah rahmaan waxaana ku dooran doonaa meeshaada iyo meel ka sii koreyso waxaan rabnaa inaan baaq dheer u dirno dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan leenahay dawladdu indho dheer ha u yeelato gobolka Gado waxaan leenahay dawladda Soomaaliya dadaalka aad samayseen ha sii ahaado mid ka laba jibaaran midka aad maanta noo samayseen waxaan rajaynayaa kuna soo koobayaa inay dawladda indho dheer u soo yeelan doonto oo kuwa hadda ka sii dheer gobolka Gado qaasatan xuduudaha maxamed sheekh maxamed la fagar warbaahinta istaa beled xaawo